Bismillahirrahmanirrahiim kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada idinkugu soo gudbin doona tabinta Somali Live waxa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay magaalooyinka Garbahari iyo Ceelwaaq oo ay ka bilaabato u diyaar garow doorasho iska soo horjeedo Puntland oo shaacisa khasaare ka dhashay dagaalkii ka dhacay sanad ka hor magaalada Boosaaso xilli Siciidani oo wada ololihiisa madaxweynaha Soomaaliya lafta garan oo cadeeyay musharaxa oo wata fariin u diray musharaxiinta oo tartami doonta xilka guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaradka ee Somaliland oo ku dhawaaqay dagaal ka dhanay Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland qodobada iyo qodobo kale ayaynu ku faahfaahin doonaa wararka Somali Live u diyaar garooba mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa Arbaco taariikhda ay ku beegantahay 20ka bisha Afraad 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno gobolka Gadow waxaa ka socda magaalooyinka Garbahari iyo Ceelwaaq u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada deegaanadaasi ka dhacdo waxaana ka dhashay khilaaf xooggan kadib wareejintii tilaabada ay qaadeen guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen magaalada Garbahari aan lagu qaban doonin 16 kursi ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka iyo khilaafaadka heer federaal oo shalay gaaray magaalada Garbahari ayaa ku dhawaaqay in 16 kursi ee doorashadooda gobolka Gadow tahay ku qaban doonaan magaalada Garbahari hore guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf gudoomiyahooda oo horkacaya qaar kamid ah ayaa Kismaayo gaaray iyagoona sheegay in diyaar garow ugu dambeeyay ka socda magaalada Ceelwaaq oo dhankeeda maalmaha soo aadan 16 kursi lagu qaban doono xubnaha Garbahari gaaray ayaa sheegay in ujeedkooda halka u tageen ay tahay qiimeynta in magaaladaas ay diyaar u tahay in doorasho lagu qabto iyo sidii doorashada kuraasta baarlamaanka taal magaaladaasi loo qaban lahaa arrintan ayaa timid iyadoo soo shaabaxaysa kala qaybsanaan guddiga fiid dhexdiisa xilli gudoomiyaha guddiga heer federaal iyo xubno la socda ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo iyagoo doonaya in kuraasta Garbahari lagu qabto magaalada Ceelwaaq Cabdiweli oo maaliyadda u qaabilsanaa guddiga fiid ayaa sheegay in ay isku diyaariyeen iskuna xilqaameen isla markaana ay ku dadaalayaan sidii kuraasta gobolka Gadow lagu qaban lahaa doorashadooda magaalada Garbahari oo dhawaan ay dhici doonto go'aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka 14 bishan ayaa lagu shaaciyay in lagu wareejiyo doorashadii labaad ee Jubbaland laguna wareejiyo Ceelwaaq ma ahayn go'aan rasmi ah oo guddiga ka soo baxay mana jirin guddi inta u fariistay go'aankaasi qaatay arrintaasi guddiga awood uma lahayn in deegaan sharci ah uu bedelo ayuu yiri Cabdiweli walow qorshahaasi uu iska cad yahay isla markaana dad badan ay qabaan inay fila Soomaaliya gadaal ka reexayso dana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa faray xubnaha guddiga inay isku diyaariyaan qabanqaabada doorashada Garbahari oo guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland ay wadaan maamulka gobolka Gadow ayaa hore kaga dhawaajiyay in doorashada Garbahari aan laga wareejin doono isla markaana ay sharciyo tahay in lagu qabto 16 kursi markana Boosaaso guddiga xaqiiqi raadinta ee dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada Boosaaso bishii December ee sanadkii hore 2021 ayaa waxay soo bandhigeen khasaarihii nafeed iyo mid hantiyadeed ee ka dhashay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee hogaaminaya Maxamed Cusmaan Diyaana qaar kalena ay taageersanayeen Siciidani guddigan oo ka koobnaa ilaa 13 xubnood oo tan iyo markaasi wada qiimeynta khasaarihii sababay dagaalkaasi ayaa ugu dambeyntii soo saaray warbixin iftiiminaysa baaxadda khasaarihii ka dhashay dagaalkaasi warbixintan ayaa lagu muujiyay in dadka ku dhintay ay yihiin 22 ruux waxa ku dhaawacmay ay gaarayeen 86 qof khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dagaalkaasi waxay guddiga warbixinta ay ku sheegeen inay dhan tahay 807,500 oo kun oo dollar xubnaha guddiga ayaa sidoo kale ku baaqay hogaanka sare ee Puntland inay fuliyaan dhaqangelinta qodobadaasi si loo saxo hantida ay ku qiimeeyeen inay ka khasaartay dagaalkaasi ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha Puntland ayaa hore guddigan u ballan qaaday inuu bixi doono lacagta ay qiimeeyeen khasaarihii ka dhashay dagaalka Boosaaso sidoo kalena sababay baraka xooggan warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli heshiis buuxa laga gaaray dagaalkii Boosaaso gaar ahaan xiisadii ka dhaxaysay Dani iyo Diyaano waxaana kadib Boosaaso lagu qabtay doorasho kuraasta ee xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Puntland warka laga sugayo falcelinta warbixinta guddiga soo saareen xilli Siciid Cabdullaahi Dani uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo ka bilaabay ololihiisa doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya fariinta timid ayaa ku soo aadaysa xilli Siciid Dani si weyn ugu hardamayo xilka madaxtinimo ee ugu sarreeya Soomaaliya walow aan la ogeyn sida uu guuleysan doono guddigan qiimeynta ayaana faray xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo jawaabaan falalkii ka dhacay Boosaaso iyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay iyo kuwii ku naf waayay dagaaladaasi aan waxba galabsan
waxyaabaha saameynta weyn ku yeeshay siyaasadda Siciid Cabdullaahi Dani oo haatan dhaliilaha weyn lagu soo jeedinayo waxaa qayb ka ah dagaalkii Boosaaso uu ku qaaday Maxamed Cusmaan Diyaano balse Puntland looga awood roonaaday. Siciid Dani waxa uu qayb ka yahay musharaxiinta sida weyn ugu dadaalaysa sidii Soomaaliya hoggaanka ugu qaban lahaayeen walow ay ka daba baxayso qayladhaan ka imaanaysa deegaanada maamulka Puntland. markaana madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo shalay gaaray Muqdisho ayaa durbadiiba bilaabay ololaha doorashada gudoomiyaha golaha shacabka isagoo cadeeyay musharaxa uu taageerayo uu wado Laftagareen sidoo soo saari lahaa. hogaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa soo xulay dhammaanba xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa xalay kulan isugu yeeray saddex musharax oo u dhow xilka gudoonka kuwa oo kala Xasan Cabdinuur Xasan Eelay iyo sidoo kale Aadan Saransoor oo dhanka Laftagareen ka socday. sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay noo sheegeen madaxweyne Laftagareen ayaa shaaciyay inuu si buuxda u dhisay xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah nin dhalinyaro aad ugu dhow kana mid ah xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ee golaha wasiirada. sidoo kale waxa uu ka dalbaday Xasan Eelay iyo Aadan Saransoor inay tartankaasi isaga haraan oo ay taageeraan Xasan Cabdinuur waa sida xogaha ay tilmaamayaan. xildhibaan Xasan Cabdinuur ayaa la filayay inuu isku soo sharaxay si rasmi ah xilkiisa isla markaana xaflad weyn oo ku qabto Muqdisho taasoo lagu martiqaadi doono xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda. waxaa xusud mudan inay musharaxiin tiro dhowr ah oo cadcad ay xilka madaxtinimo oo xisbiyada qaar ka socda ay u tartami doonaan oo qayb ay ka yahay Sheekh Aadan Madoobe Cabdullaahi Black oo xilkan u sharaxay isla markaana ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. Xasan Cabdinuur ayaana musharaxiintaas loolan la gali doona haddii labada musharax ee kale ee uu Laftagareen la hadlay Xasan Eelay iyo sidoo kale Aadan Saransoor ay isaga haraan tartankaasi. Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ayaana haatan dadaal xooggan ku bixinaya hogaamiyaha Koonfur Galbeed sidii saaxiibo isku dhow yihiin ee daacad u ah hoggaanka golaha shacabka u qaban lahaayeen maadaama xogaha ugu badan ay tilmaamayaan inuu dadaal ku bixinayo sidii mar kale farmaajo u soo celin lahaa. Sheekh Aadan Madoobe oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka gudoonka golaha shacabka deegaanada Koonfur Galbeed ka soo jeeda ayaa isna si weyn taageero xooggan ugu helay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ugu weyn ee xisbiga Himilo Qaran oo shalay xilku iska hayay iska casilay maadaama uu tartamayo gudoonka golaha shacabka. inkastoo loolan adag lagu jiro hanashada gudoonka ugu sareeya isla markaana xisbiyo kala duwan ay ku tartamayaan haddana Laftagareen ayaa wada qorshaha uu ku soo saari lahaa Xasan Cabdinuur. musharaxnimada Xasan Cabdinuur waa tijaabada awoodda Laftagareen ee baarlamaanka iyo sida ugu xiran yihiin xildhibaanada uu soo saaray waxaana guusha Xasan ay tusaale u noqon doontaa haddii uu helo xilka gudoomiyaha sida xildhibaanada Koonfur Galbeed u saameyn karaan doorashada madaxweynaha walow ay jiraan siyaasiyiin kala cadcad ee xilkaasi u tartami doonto ee Koonfur Galbeed ka soo jeedo. badiba magaalada Muqdisho haatan waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada oo qayb ka yihiin madaxweynaha Galmudug Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabelle Guudlaawe, Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo isna soo gaaray. sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ka maqan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo wali deegaanadiisa ay ku dhiman tahay deegaan doorashada labaad 16 kursi ee Garbaharey oo dooda weyn ay ka taagan tahay walow dhawaan in la soo gabangabeeyo qorshe yahay. ugu dambeyntiina hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Uxud Faysal Cali Waraabe ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ku eedeeyay inuu dibadhac xooggan ka wada Somaliland isagoo ku eedeeyay maarin la'aanta qabashada doorashooyinka ay ku ballameen. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in Somaliland ay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye oo salka ku haya doorashada deegaanadaasi balse kaliya loo baahan yahay in dhabal la isku raaco iyo wada saxan oo dawladda lagu jahayn karo. Faysal Waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sheegay inuu abuuray dad baraha bulshada dadka ku aflagaadeeyo oo sumcad dila saameeya isla markaana dhaqaale uu ku bixiyo maamulka Muuse Biixi. Muuse Biixi ayuu Faysal ku eedeeyay inuu Somaliland ka wada gabadfal weyn isla markaana uu xabsiyada isugu geeyay haldoorka Somaliland si gaar ah magaalada Booramo oo dhawaan dad badan laga soo xirxiray iyo sidoo kale in ka badan 15 wariyo oo xabsiga isku mar la isugu geeyay. deegaanada Somaliland ayaa qorshu yahay in dhawaan ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo oo xisbiyo badan ay ku tartamayaan. xisbiyada mucaaradka ee wadaniga Uxud ayaa eedeymadeeda ku jeediyo kulmiyo ku dhaleelay in qorshaha oo lagu ballaarinayo asxaabta xisbiyada ay ku tilmaamay kuwa lagu dhibaateynayo laguna dibdhigayo doorashooyinka si waqti kale uu xafiiska ku sii joogo Muuse Biixi Cabdi. inta ayaan ku soo gabagabaynaa daawadayaal tabinta wararka Somali Live Media mid la mid inta kulmi doona nabadgelyo fadlan muuqaalkan sii share garay saaxiibada kale si gaarsi daawashadaada waad ku mahadsantahay warka mid la mid ah nabadgelyo.